in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu daacad ka yahay qabsoomida doorashada sidoo kale waxaanu aaminsanahay in golaha meesha jooga ee wakiiladu aanay daacad ka ahayn in doorashadani qabsoonto oo ay dhacdo waxaan sidoo kale aaminsanahay in doorasho kuwii xeerka sameynayay ay dabada hayaan aanay dhacaynin golaha sidaynu ognahay golaha wakiilada imika jooga waxa meesha fadhiyaan 12 sanadood sidoo kale waxay doonayaan in loo sii kordhiyo 12 sanadood oo bilaa shaqo ah ay meesha fadhiyaan golahan oo loo yaqaan dadka qaarkood u yaqaanaan guurtida yaabtay waxay doonayaan sida guurtida ay sharci darro ku fadhiyaan oo mar walba 2 sanadood iyo 3 sanadood loo kordhiyo sida intay fadhiyeen maanta waxa bixi lahaa dufcadii saddexaad golahan waxa la doortay 2005kii waxay haydina meesha baneeyaan 2010kii kuwii iyaga bedelay waxay tagi lahaayeen 2015kii maanta waxa fadhiyi lahaa golihii saddexaad ee cod lagu soo doortay waxaana inoo muuqata in aanay jirin jawi maanta lagu doorasho ku dhacdo oo ay hor fadhiyaan golaha wakiiladu sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland guddiga doorashooyinka maxkamadda sare donorska ama deeq bixiyayaasha doorashooyinku iyo cid kasta oo ay qusaysaba in arinta la soo farageliyo oo wax laga ogaado wabillahi tawfiiq